السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي السود وهذا channel كداونسا ونونو أكاديمي. مقال كنا ما أنت وبارت 2 أما قيبت اللباد وحينو كجهل دونا سيدا لوصل ما يستو ويب سايت فري. هدي هذا حسوسته بارت 1 أما قيبت كوبات وحينو كجسوا هذا اللي أما وحينو كسوس ما يسمى ويب سايت. لكن ويب سايت كنا لايف ما أهين أو ستاتيك أيوها كلية أنا بس استعمالك. مقال كان وحو دبا سocda muuqaalkii hore ee aan website-ka ku soo sameeysanay maanta waxaanu sameyn doonaa insha Allah website-kii aan soo sameeysanay ee aad ogeydeen ee aan hortiina ku sameeyay aan insha Allah waxaan ka dhigi doonaa live ama si live ah ayaad u soo gelin doonaa ama waa la access gareyn doonaa insha Allah marka maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay cashirkaas si aan live ugu dhigi lahayn ama website-ka si live ugu dhigi lahaa haddii aadan soo daawan muuqaalkeena hore muuqaalkan ma fahmayst fadlan muuqaalkeena hore soo daawo insha Allah muuqaalku waxaan ku dhigi doonaa haddaan hore u daawan qaybta description-ka koobaad muuqaalkeenaas waxaynu kaga soo hadalnay ama waxaynu ku sameynay website-kaasna wax lacag ah kama bixin maantana sidoo kale ama website-kan hore soo sameynay maadaama aan live ka dhigayno wax lacag ah ma bixin doono marka sidaas waxaan ku haysan doonaa website live ah oo dhameystiran marka haddii aad xasuusato website-keena magaciisa wuxuu ahaa Academy 1 marka maanta insha Allah Academy 1 kaas ayaan live ka dhigi doonaa fadlan haddii aad muuqaalka hore soo daawanin muuqaalka lama qabsan doontid ee muuqaalka soo daawo commentiga koowaad ama qaybta description-ka ka fiiri xagga ayaad ka daawan kartaa kadib waxa waaye muuqaalkan waad fahmaysaa dadka muuqaalkeena hore daawaday ama sameeyay sidaad ogeedeen waxaan soo install gareysanay wax loo yaqaan Bitnami WordPress ayaan ka sii bilaabi doonaa marka saaxiib saa wad ognahay horay waa on install gareysanay maadaama horay u haysanay Bitnami-gii dadkii save gareystay ama dadkii muuqaalka hore daawaday ay save gareysteen ama install gareysteen kaliya waxaan u baahanahay inaan tago xaggan ku qorantahay search anagu Windows 11 aan isticmaalay xagga waxaan ku qorayaa WordPress markaan ku qoro saa u jeedta xaggan waxa ku soo baxay WordPress package by Bitnami kaas ayaan click ku siinayaa ka markaan click ku siiyay kadib xaggan waxa ku qoran go to application meesha ay ku qoran tahay ayaan click ku siinayaa marka sida hore ogeydeen website-ka xaggan waan isla imaanay xaggan waxaan ku dhuftay ahayd access WordPress maadaama website-keena hore u sameeysanay waxaan ku dhufanayaa access WordPress meesha ku qoran tahay kadib wuxuu toos noo goyn doonaa Academy 1 blog aan sameeysanay saa u jeed Academy 1 blog aan sameeysanay hadda waa diyaar oo wax walba waa u dhameystirnay marka bal aan fiiriyo in login aan sameyn karno qaybta WordPress-ka xaggaas waxaan kaliya raacinayaa WordPress/login ku xasuusnaa saaxiib website-keena weli live maahan kaliya aniga ayaa access gareyn kara marka waxaan fiirinayaa WordPress-keena inaan ka gali karo iyo in kale markaan u baahdo WordPress-keena inaan geliyo local host-ga WordPress-ka xaggaas waxa kaga daraysaa login xagga markaan login kaga daro marka Gmail-kay iyo password-ka waxa waaye aan hore u sameystay ayuu soo qabanayaa kadib login ayaan ku dhufanayaa login markaan ku dhufto waa sax marka waxay ka dhigan tahay website-keygii waxa waaye wax walba u dhameystiran kaliya waxa ka dhiman inuu live noqdo marka insha Allah hadda waxaan aadaynaa wadadii ama step-kii aan live kaga dhigi lahayn xagga markaan joogo saaxiib xaggan ayaan imaanayaa waxaan sameysanayaa account ayaan ka sameysanayaa shirkaddan loo yaqaan netlify.com xaggan waxaad ku qoraysaa http ama www.netlify.com qaabkaas aan anigu qoray ayaad ku qoraysaa kadib enter ayaad leedahay xagga markaa ku dhufatid website-kan ama hadda waxaan qaybta Netlify-gan waa qaybta noo ogolaan lahayd account ayaan ka sameysan doonaa kadib waxa waaye step ayaan website-keena live uga dhigi doonaa xaggan aan ku dhufanayo ku qoran tahay start building for free xaggaas ayaan click siinayaa xagga markaan click siiyay account ayaan ka sameysan doonaa insha Allah account free ah ayaan ka sameysan doonaa kadib saa u jeedid xaggan waxaan ku dhufanayaa qaybtan ay ku qoran tahay sign in by email ayaan ku sign gareyn kadib xaggan email-kayga ayaan gelin waa u soo qabtay xaggan password ayaan gelinayaa marka saa u jeedid password ayaan geliyay sign up ayaan leeyahay sign up markaan ku dhufto kaliya email-ka uu soo dhici doonaa wuxuu dhahay password must be at least 10 marka bal wax kuwa password ku diiday kuwa kale ayaan ku fiirin doonaa bal hadana kan inuu diiday in kala jeegre sign up ayaan dhahay password aye
kaana wuu diiday marka password adag ayuu xaggan ugu baahan yahay marka bal password adag ayaan gelin doonaa aye sign up de marka passwordkan markuu qaato oo passwordkan uu ku tago kaleynaya passwordka emailka uu diiday hal mar aan ka baxo welcome to Netlify meesha ku qoranta aan ka baxo kadib aan ku dhufto start for free dib ayaan ugu soo laabtay maadaama uu ii diiday kadib xaggan aan ku dhufto xaggan gmail-kayga geli kadib xaggan insha Allah waxaan ku dhufan doonaa marka waxaan gashan doonaa password adag geli ayuu ileeyahay password adag ayaan gelin doonaa marka sign up ku dhufo saa u jeedid passwordka uu qaatay safe ayaan leeyahay safe markaan dhaho marka saaxiib xaggan waa saga laabanayaa waxa ii soo dhici doona gmail-kayga ayaan tagayaa gmail ayaan ku dhufanayaa gmail-kayga ayaan ka sign up garan doonaa insha Allah gmail.com login de kadib marka qaybta gmail-kayga insha Allah in aan waxa verified ka sameeyo ayaan rabaa because wax markay ku soo diraan waxay u baahan yihiin email-kooda in la verified gareeyo hadii kale kaama yeelayaan waa inuu email-kooda ku soo dhaco saa u jeedid email ayaa ii imaaday waa kan Netlify welcome to Netlify click ayaan siiyay ka markaan click siiyay kadib waxaan u baahanahay email-kooda inaan verified gareeyo email-kooda markaan verified gareeyo on account xaggan ka sameeyo yes verify email de email-kooda markaan verified gareeyo waxaan aadi doonaa marka hadda waxay ka dhigan tahay account waa ku leenahay meeshan marka sidaa u jeedaan account waa ka samaysanay qaybta loo yaqaan Netlify account-keena waa noo diyaar kaliya waxba kale uma baahan oo account-keena hadda waxa sawirkii xaggan saaran u jeedaan account-keena waa noo diyaar oo account-keena Netlify sidaan ayuu soo baxaa you are nearly there ayuu dhahay marka waxba kale kaga sii baahan kadib waxaan u baahanahay insha Allah ta'ala in maxawaaye aan sameeyo ama aan WordPress-kiga ku soo daro plugin loo yaqaano Simply Static plugin-kaas wuxuu noo ogolaanayaa account-kan Netlify aan sameynay xogteena inaan ku soo gudbino tusaale Netlify account ayaan ka samaysanay kadibna waxaan u baahanahay plugin-ka loo yaqaano Simply Static si uu xogteena u keeno account-kan Netlify because website-keena live kama dhigi karno hadii aan Netlify-ga iyo website-keena isku xiran marka plugin-kan aan hadda u baahanahay Simply Static ku qoranta wuxuu noo ogolaanayaa inuu xogteena ka soo qaado WordPress-ka kadibna uu keeno xaggan si website-keena waxa waaye uu u noqdo mid live marka waxaan sameynaynaa waxaan ku laabanaynaa qaybtan maxaa la dhahaye barnaamijka kadib waxaan leeyahay go to my application because waxaan rabaa inaan tago WordPress-kayga kadib access WordPress ayaan leeyahay access WordPress markaan dhaha xaggan login ayaan leeyahay because inaan gala ayaan u baahanahay login ayaan ka daba raacinayaa login markaan dhaho kadib saa u jeed waxaan ayuu soo qabanayaa waxa waaye password-kayga ayaan geliyay marka waxaan rabaa inaan plugin-ka ku soo daro loo yaqaano Simply Static kadib waxaan imaanayaa plugin meesha ku qoran tahay add new ayaan imaanayaa marka waxaan xaggan ku qorayaa Simply Static ayaan leeyahay kadib saa u jeedid wuu raadinayaa markuu raadiyo waa kan koowaad ku qoran tahay Simply Static install now ayaan leeyahay waan install gareysanayaa markaan install gareeyo kadib activate ayaan leeyahay marka plugin-ka wuxuu noo ogolaanayaa xogteena inuu WordPress-ka ka qaado kadib account-ka aan samaysanay Netlify-ga inuu geeyo kadib website-keena live ayuu noqon doonaa insha Allah waan install gareysmaysaa u jeedin waa installing kadib activate ayaan leeyahay waan activate gareynayaa marka xaggan ayuu isoo fuuli doonaa qaybtan ayuu ku soo darsamin doonaa markuu activate noqdo marka activate activation ayuu sameeyaa okay marka saa u jeedid waxaan qaybtan ayuu imaaday waxaana ku qoran Simply Static kadib waa ku dul dhufanayaa markaan ku dhufto marka xaggan waxaan rabaa generate static file haddaan ku qorto xogteena dhan ee xaggan taashay ayaa soo bixi doonta generate static file ayaan ku dhuftay generate static file markaan marka waxaan rabaa xogteena in xaggan laga qaado kadib Netlify-ga la geeyo marka plugin-ka wuxuu noo ogolaanayaa xogteena inuu generate gareeyo saa u jeedin way soo baxday xogteena
marka waxaan ku dhufanaya xaggan ay ku qoran tahay click download xagga ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaya marka automatically uu download gareysmaya marka xogteeni markay tan noqoto open xaggaas ay ku qoran tahay open file ayaan leeyahay marka saa u jeedid xogteena qaabkaas WinRAR-ka ay u furmaysa marka waxaan rabaa inaan qaadno oo aan geeno meesha loo yaqaano Netlify marka sidaa u jeedaan application file-kii waa download gareeyay file-kan waa midka noo ogolaanaya website-keena inaan live ka dhigno because xogta website-keena oo dhan ayaa inoogu duugan marka insha Allah waxaan sameyn doonaa marka file-kan ayaan waxa waaye aan ka dhigi doonaa maxaa la dhahaye waxa waaye external maadaama uu yahay waxa waaye extract all ayaan dhihi doonaa extract all markaan dhaha kadib extract ayaan leeyahay sidaa u jeedin uu kala qaadmo markuu sidaa u kala qaadmo file-kan simple static ku qoran tahay ayaan qaadi doonaa waxaana dhigi doonaa xaggan marka drag and drop ayaan sameynaynaa insha Allah file-kii sidaa u jeedin waa kan file-ka sidaa u jeedin waa kan waan soo qaadayaa xagga ayaan ku sii deynayaa waan soo qaadayaa marka file-kii xaggan ayaan ku sii deynayaa marka waan soo qaaday saa aragtaan file-keygii waa kana xogtiisii oo dhan waa wataa saa u jeedid xaggan ayay iigu qoran tahay marka waxaan rabaa marka maadaama file-ka xogtiisa soo qaatay file-kan ama xogtan waa xogtii oo ogolaan lahayd in waxa waaye aan website-keyga live ka dhigo sidaa u jeedid hello world xogteeda oo dhan xaggaas ayay ka muuqataa waan soo wada qaad marka insha Allah xaggan waxaan kugu tusayaa qaabkii aad marka xogtaada live aad ka sidaa u jeedaan file-keyga xaggan hadda uu ii saaran yahay oo waa kan xagga markuu joogo hadda Nuno Academy ana ku qoray marka haddii aad u baahato isla magacaan xitaa inta ka bedesho aad magac kale ayuu ku soo saar doonaa hadda magacaan ana ka bedelay site setting ayaad ku dhufanaysaa kadib hoos ayaad u soo riixaysaa hoos marka u soo riixda kadib waa kan ahaa change site name ayaad imaanaysaa change site name ka markay imaadid waxa waaye xaggan magaca waa ka bedel doontaa kadib save ayaad leedahay marka magaca aad u baahan tahay gashid save ayaad leedahay kadib URL-ka ku siinayo wuxuu ku noqon doonaa midka xaggan ku yeelo oo waa kanaha sidaan ay kugu soo bixi doonaa marka Nuno Academy haddaan click ku siiyo waa u jeedaan website-keyga oo dhameystiran waa live marka insha Allah saaxiib adna waxa waaye muuqaalka like garay YouTube-ka subscribe no sar aad iyo aad u mahadsan tahay waan rajaynayaa website-kaaga inuu live ku noqday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.